kulan waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo waxba la iskula harin ayaa dib uga qarxay deegaanka Jeecboor ee galbeedka gobolka Mudug. Dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba beelood oo walaalo ah, marar badanna dagaalkan waa uu soo laabtay. Waxaan halkan kula wadaagi doonaa dagaalkan hadda socdo ayaa gabi ahaanba noqday mid shaki weyn dhaliyay kadib markii beelihii halkaasi ku dagaalamaya beel ka mid ah ay la soo baxday hubkii casriga ahaa ee dhowaan loo qaybiyey ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. dagaalkan waxa uu ku fiday deegaano hor leh, mana jirto wax waanwaana oo dhinacyadu ay bilaabeen, waana mid dagaalkani sii ballaaranaya oo ku fidayo dhul hor leh iyo deegaano hor leh. horey dagaal sidan oo kaleeto uga dhacay deegaanadaasi waxaa xal uga gaadhay maamulada Galmudug iyo weliba sidoo kaleeto Puntland. ilaa iyo xilligan labada maamul kama aysan hadlin dagaalkaasi. dhanka dowladda federaalka ilaa iyo xilligan wax wara oo dagaalkaasi iyo baaqo ay ka soo saartay ma jirto, bale dowladdu waxay ku mashquulsan tahay burburinta deegaano hor leh iyo weliba goobo muhiima oo ay dowladdu ku duuleyso oo maamulo ay ka arrimiyaan. xogii ugu dambeeyay ayaa halka kula wadaagi doonaa, balse intaasi ka hor dayta markaad kugu horeysay ee barnaamijkan uu soo gaaro sii shargaree oo la wadaag asxaabtaada kaleeto. aynu ku bilownay deegaanka Jeecboor oo ka tirsan galbeedka gobolka Mudug. dagaal xooggan ayaa ka socdo. dagaalka waxa uu dhaxeeya laba beelood oo walaalo ah, dhowr marna halkaasi dagaal ayaa ku dhex maray. dagaalkan horey waxaa xal uga gaadhay madaxda gaar ahaan madaxweyne Qoorqoor iyo weliba sidoo kaleeto madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo iyagu intay iskood isku xilqaameen labada beelood ee walaalaha dagaalkooda qaboojiyey muddo dhowr bilood ka hor. balse dagaalkan dib ayuu u soo cusboonaaday, dhinacyaduna waxay ahaayeen kuwo diyaarsanayo hubkii ay mar kale isku layn lahaayeen. beelaha halkaa ku dagaalamaya beel ka mid a ayaa la soo baxday hubkii ciidanka dowladda federaalka ay dhowaan ugu qaybisay ama ay geysay gobolada Galmudug, waxaana gebi ahaanba hubkaasi uu noqday mid ay isku xasuuqaan laba beelood oo walaala. dagaalkan deegaano hor leh ayuu haatan si toosa ugu sii fidayaa, ilaa iyo xilliganna madaxda maamulka Galmudug iyo Puntland iyo weliba sidoo kale dowladda federaalka kama aysan hadlin, baaq kama aysan soo saarin. ma jirto cid si xil gaara iska saartay oo dadka walaalaha ee wada dego ee iska laynaya birmigeedadii sidoo kaleeto iska gubayay deegaanadoodii cid kala dhex galayso ma jirto. waxaadna moodaa in laysku daawanayo oo gebi ahaanba dhinacyada ay markaasi dhinaca dowladda iyo dhinaca maamuladaba ay ku heshiiyeen in dadkaasi loo kala baxo, bal waxay iska soo reebaan la arko. dowladda federaalka ee arrintan ay khuseysay ee mar walba la soo taagnayd doorasho qof iyo coda laga qabanaya dalka kama aysan hadlin, bale waxay wadaa duulaan qaawan oo ay ku wado qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka aragtay danaheeda siyaasadeed. dowladdu way ka mashquushay xalinta khilaafaadka beelaha iyo weliba dhibaatooyinka qabiilada dhex marayo, waxayna ku mashquushay sidii gebi ahaanba ay markaasi deegaano nabada oo dadkoodu ay jecel yihiin oo midaysan yihiin sidii ay ku kala furfuri lahayd, sidoo kaleetana ay dhibaato halkaasi uga geysan lahayd. dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay xal ka gaadhay xiise taagnayd 20kii sane ee ugu dambeysay, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo labada daan ay kala degaan laba beelood, balse oo dhibaato fara badanna dabcan ay ku dhex martay, dagaalo fara badanna ay halkaasi ka jireen, ayuu madaxweynuhu intuu dhex fadhiistay ayuu halkaasi xal ka gaadhay. maalintaa kadibna wax dagaala oo halkaasi ka dhacay ma jiro, cid isqabsatay ma laha, balse haatan waxaad moodaa inay dagaaladii dib u soo cusboonaadeen. tan iyo intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la doortayna waxaa markaasi tusbax furtay noqday dagaalada qabiilada iyo duulaanadii dadka la iska laynayo iyo dhibaatooyinka dhuleed ee markaasi gebi ahaanba sababayo in ay beelo madaxa isla galaan. guud ahaan dagaalkaasi oo khasaare badan sababay weli la socdo ilaa iyo xilliganna aysan jirin cid ka hadashay. waxaa gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaba ay markaasi baaq u diraysaa, baafinaysaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa oo ayagu ku caanbaxay furfuridda iyo burburinta maamulo dhisan iyo deegaano nabada, inay arrintaasi wax ka qabtaan oo ay ka hadlaan oo shaqadii loo egmaday ay dib ugu soo laabtaan. guud ahaan daawadayaal waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe wararkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. tan iyo intaan midka kan xig ku kulmi doono waxaa idinka tahay sidaas iyo ammaan alla.